maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha Janaayo 2022 waxa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. shirka waxaa xigay in lagu ansixiyay xubin kamida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyay Xaliima Jaamac Afrax. wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso ah. golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo tixgeliyay dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhaxeeyay dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixiso ah. haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas, sidoo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horay golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso ah.